waxaa jiri jiray waqti aan waqtigan ahayn waxaa si wada jir ah magaalada Muqdisho u wada noolaa nin ganacsadaha iyo xaaskiisa iyo canug ay dhaleen qoysku aad ay nolosha ugu raaxaysanayeen waxay lahaayeen digaagad qurux badan maalin kastaana waxay dhali jirtay hal ukun oo keliya oo ay lacag badan ka heli jireen laakiin ninkii kuma qanacsaneen waxa uu maalin kasta ka helayay waxa uu rabay in ukumaha oo idil mar qura uu ka wada helo digaagadda waxa uu ku fikiray sida ay arintaa u dhici lahayd isla markiiba waxa ku soo dhacday fikradda ah in digaagadda uu dilo si uu u helo ukumaha oo wada jira digaagadii ayuu soo qabtay qoorta ayuuna ka jaray jirkeedii ayuu jarjaray laakiin waxa uu arkay dhiig socda oo keliya aad ayuu u shoogay sababtoo ah hal ukun xitaa ma uusan arkin noloshii qoyskana waxaa soo wajahday faqiirnimo xikmadda sheekada qofkii wax badan damciyaa dhammaan ayuu waayaa